madaxda ka socota wasaaradda biyaha dhalinyarada haweenka saxaafadda odayaasha goostambeedka ah ee wasaaradda biyaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta runtii shalay bay ku beegnayd oo dee shalayna waa tii ahayd roobdoonta aynu akhriyaynay oo 22 Maarch ahayd oo maalinta biyaha adduunka runtii ma ahayn inaynu xafladeyno waxay ahayd inaynu ducaysano maadaama abaar balaadhani oo laba jirsatay dalka ka jirto inkastoo gobolada bariga aad iyo aad ay u fiican yihiin haddana ay biyalaantu iminka saamaysay oo dadkeenu abaar ku jiro waxaan leenahay oo aan qoladan biyaha ee macdanta aan kula dardaarmayaa wax badan iyo tuulooyin badan baa laga soo cabanayaa oo hay'adda Kenya aan leenahay oo ay meelihii biyaha loogu shubay ama ay mashiinadii ku xumaadeen oo dadkii biyalaan qaynayaan horta marka hore waxaan leeyahay inaad ka hawl gashaan oo u dadaashaan dadka dhibaataysan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu abaartan xoogaysatay inaga soo furto inkastoo dee gobolka Togdheer iyadoo abaarayna haysa haddana aynu muujinay wanaagii iyo walaaltinimadii gobolada kale oo aynu caawimooyin u geynay gobolada galbeedka hadday tahay boqolkii gaari ee cawska ahaa ee gudoomiyaha gobolka ugu deeqay gobolka Gabiley iyo lacagtii $15,000 oo loo haddana loo qaybiyay gobolada galbeedka oo 3 gobol ahaa Gabiley Boorame iyo gobolka Hawd runtii gobol ahaan inaga waxay noo tahay sharaf waxaynu muujinay walaaltinimo aan weligeed ballaaran oo aynu dadkii abaaroobay ee walaalaheena ilaahay abaarta ha ka qaaday abaar xun oo ballaaran baa ku dhacday aynu u fidinay lama aragdo gobol caawiya inagaas ugu horeeyay gobolka Togdheer haday noo taana amaanteedaynu ku leenahay ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in roob badan iyo naxariis ilaahay inoo shubo ilaahay ba gacmihiina aynu ku baryaynaa intaynu leenahay hay'ado iyo dad hayna caawiyaan caada ilaahay bayna haysay ilaahay aynu noqono oo ilaahay aynu barino markaynu ilaahay barino ayay inoo soo wax waliba inoo furfurmayaane inaynu ilaahay barino inuu naxariistiisa iyo raxmadiisa abaaraha inaga qaado oo ay biyo badan iyo roob aynu helo ilaahay baynu taana ka baryaynaa maalintan waa maalin qiimo badan inkastoo inaga abaar iyo biyalaan nagu soo beegantay maalinta biyaha adduunka inagu burca ahaan iyo gobol ahaan Togdheer xoog baynu biyo u haysanaa laakiin degmooyin iyo tuulooyin inaga mid ah ayaan biyo haysan iyagana ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaynu gaadhsino inagu biyaha mar haddaynu 4 gacmoodba ku meelayno degmo ahaan burco waynu ugu mahadnaqaynaa wasaaradda biyaha iyo wakaaladda biyahaba oo riigad badan iyo dhaaman badan bay noo samaysay aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa iyagiyo hay'adaha ka caawiyaba laakiin waxaanu leenahay tuulooyinka dibadda hoos u eega waxa laga xalayto tiifiyada ay ka hadlayeen oo ilaahayeen meelaha naga xun biyaha oo biyo gaarsiiye ilaahay baa wax gaarsiiye hadalkana badin maayo waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi